السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيارتا يدا صاحبada yada qiimaha iyo qadarinta mudan oo maanta waxaan ku sugannahay magaalada Fiiq. Saad u jeedaan gadaasheeda waxa ka muuqata buurta caanka ah ee Duudweyne. Waxa sidoo kale gadaasheeda ka muuqda dhismo cajiib ah qadiimi ah oo mar dhaweeytay muxuu ahaayna laga warramay taariikhdiisa oo Muxidiin Show iyo iska wareysanayeen Dab TV. muxuu ahaay daartan oo la sheegay in la dhisay waqtigii dawlad Cusmaani walow aan la hubin laakiin taariikhda markii la eego waqtigaas baa ugu macquulsanayd oo la dhis karaaba leeydi sidoo kale goobtan waxay ahayd goob caan ah oo muxuu ahaay nin shariif oo dadka muxuu ahaay u talin jiray oo hogaamiyaha uu halkan deganaan jiray misna markii uu geeriyooday Allah u naxariistay dadka culimada qaar iyo bulshadu ay halkan imaan jireen la soo siyaarin jiray xoolo lagu qali jiray goobtan taariikh aad u mug weyn bay leedahay muuqaalo qurux badan oo tayo leh taariikhda oo dhameystiran waa la sameeyay already muuqaalo laakiin qurux badan oo tayo leh halka ka daawanaysaan safarkeena maanta waa Fiiq waxaan soconaa dhanka iyo mug weyn haddana magaalada ma ka soo baxnay halkan qiyaastii waxay Fiiq u jirtaa saan jeclahay 4 ilaa 5 kiiloomitir haddii laga eego halka magaaladu ku joogtana waa magaalada waa guryaha qaarkood waan u dhownahay soo warbixino qurux badan la soconaysaan bogeena Muxidiin Show iyo sidoo kale Dab TV macalka case YouTube channel kana subscribe noo saara موضوعي أبوي موضوعي يجو بدي مواني ولا أبيك بورمير وكسور شد Duudweyne وضد دوبلو يان سارناي halkan sida dhalinyaradu noo sheegeen maamulku waa meel dadka lagu qaabi jiray oo qoliyihii TPLF markay deegaanka gacanta ku hayeen dadka lagu dhibaateyn jiray way gadaafo badan meelahan dhufaysiga ka samaysnaa oo wada arki karaysaan markaad si eegtana goob deegaan ahayd oo la deganaa ma laakiin goob dagaal laga gali jiray oo wad garanaysaa inay tahay dadka lagu qaabi jiray sida la sheegay magaalada barnaamijyo aad u balbalaaran ka sameynay waxaan rabay inaan idin tuso macallinka Soomaaliyeed baa khadka ku soo qori jiray Fiiq waa caasimadda saddexaad ee deegaanka oo la yaabi jiray laakiin maanta indhahaygan ku arkaa cameraman-ku dhinaca war qabta kamarada afka laga soo bilaabay ilaa afka laga gaaro waa inta ishu qabanayso kaliya golaha jiro xagaas waa gol xagan waa gol ilaa xagga iga dambaysa magaala ka sii muuqata taasna waxay cadeynaysaa koriinka xawliga ee muxuu ahaay caasimadda Fiiq ay ku socoto 5 sano hor bay ugu dambeysay 2019 saan filayo magaalada saan ma ballaarnayn yaro iska kooban bay ahayd laakiin hadda waxa la dareemayaa isbedel ballaaran inuu ka dhashay laakiin hal mid baan rabaa halkan aan ka diro waxa kaliya infrastructure-ka dawliga aan Fiiq ku arkay waa biyaha wadada already way dhaxmaraysaa waliba ma aysan dhamaan waxaan xukuumadda deegaanka tafardaraalka iyo cid walba khusayso aan halkan fariin uga dareynaa in degmada infrastructure-ka dawliga in aad looga soo dhiso wixii degmadu isku kabkab kartay miisaaniyadeeda way helaysaa already waa diyaar laakiin waxa ka maqan waa miisaaniyadda degmada wixii ka baxsanaa way haday noqoto in muxuu ahaay waxbarashada la sii hormariyo haday noqoto in wadooyinka la hormariyo haday noqoto sidii caasimadaha kale deegaanka si lamid ah in wadooyinka kabstoon la dhigo oo muxuu ahaay wadadan kale dhaxmartaan lagu deyn in light-ka laftirkiisa street light-ka hadda uu cusub yaasaan dareemayo in la sii ballaariyo oo kuwa casriga la keeno kulay saan rajeynayo Facebook corridor-kan lagu dar doono baan malaynaya maadaama caasimad weyn hadda noqotay assalaamu calaykum fariintaasan jeclaadeen halka diro